baddeena la boobi maayo bilaash lagu qaadan maayo. qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa kulan ay isugu yimaadeen xeebta Lido waxay uga hadleen dacwadda badda ee Soomaaliya kala dhaxaysa Kenya. dhalinyaradani ayaa waxa ay wateen boorar ay ku xardhan yihiin baddeena iib maaha. Liibaan Cusmaan iyo Cali Nuur Shiine oo ah hal abuurada yar waxa ay dareenkooda ku aadan dacwadda badda ku cabireen habsuugaaneed. badda diidnay Kenya inaad naga balogtaane bilaash kuma helaysaan haddaad u boholyowdeene bawar melihidin aan ahayn qaylo iyo buuq. baddeena la boobi maayo bilaash lagu qaadan maayo intuu ruux kala bareero badroolka dhexdiisa yaala sidaa Kenyana isbuuro badroolka aruursan maayo anaa baqinoo u taagan anaa birahoo difaaci. dhanka kale dhalinyarada ka soo qayb galay kulanka ayaa fariin u diray dawladda Kenya waxa ayna u sheegeen in badda Soomaaliya aysan iib ahayn isla markaasna loo baahan yahay Kenya inay ixtiraamto darisnimada. haddaan anaga dhalinyarada Soomaaliyeed aan ahnay waxaan mar walba u taaganahay inaan baddeena dalkeena dadkeena aan difaacano marnaba kama ogolaanayno inay xoog iyo boob ay ku qaad badda Kenya. marka insha Allah maxkamaddu waxaan rajaynayaa xog fiican inay ka soo baxdo oo lagu guuleysto inaan baddeena aan helno. runtii in Kenya maanta ay diiday dacwada inay ka qayb gashay waxay ogaatay inaysan wax lahayn laakiin waxaan rabnaa xukunka la gaaray in loo daro Soomaali magdhow badana ka maqan badada intaas oo sana laga kaluumaysanay qareenay qabsatay xushmad qareena jirto wax badan aan ka maqan in garsooriyaashu ku darsadaano arrinkaasi xukunkan loo soo daro aad ay muhiim u tahay waayo weena dulmisay xaqayni bay rabtay inay ma taqaana si farsamo ay ku qaadato laakiin Allah ma iskale way u suuragali waaysi. waxaa diyaar u nahay inaan baddeena difaacano haddaan nahay dhalinyarada Soomaaliya joogto gaar ahaan Muqdisho mana ka yeelayno Kenya waxay wado badda anaga iskale cidna ma uga aba yeeli doono. waxaan halkan ka sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed in ay soo jeedo dal iyo dibad yar iyo weyn culamo iyo caamo oo rag iyo dumar qof walba oo Soomaaliyeed waxay maantayto indheedu ku jeedaan maxkamadda caalamiga ee ICJ. waxaan ka rajaynaynaa in ay maaragtay ay cadaaladda u hiili doonto maadaama ay maxkamaddii cadaaladda adduunka ay tahay. gabagabadii kulanka waxaa ka hadashay Najma Qaranbila waxa ayna carabka ku dhufatay in marnaba aysan ka tanaasuli karin taaka ka mid ah dhulka Soomaaliya iyo biyaha Soomaaliya. Soomaaliya waxa ay adduunka iyo Afrikaba ugu baaqaysaa inay diyaar u tahay xasiloonida geeska Afrika. sidaas darteed waxaan codsanaynaa in ay ogaadaan adduun weynaha oo dhan iyo dhammaan ummadda ku nool Afrika in Soomaaliya ay leedahay baddan runtiina dabaca Kenya uu yahay damac xaaraan ah oo cad oo dulmi ah dadka Soomaaliyeedna taas iyada way ku baraarugsan yihiin diyaarna waxay u yihiin hadday tahay ilmo yar iyo hadday tahay hooyo iyo hadday tahay gabadh iyo hadday tahay wiil madax iyo mas'uuliyiin intuba inay baddooda iyo hantidooda maguurtada ay difaacdaan. wali waxa aan diyaar u nahay nabadda iyo xasiloonida geeskan diyaar waxa uu yahay dadkayga Soomaaliyeed iyo waliba dawladeenuba in ay qayb muhiim ah ka qaataan xasiloonida geeska Afrika iyo adduunkaba. adduunka waxa la wadaagnaa nabad iyo deganaansho sidaas darteed markasta waxaan ugu baaqaynaa anagoo si nabada ku muujinayna dareenkeena ku aadisan lahaanshaha baddan iyo wax kasta oo Soomaaliyeed oo xuduud hadday noqoto iyo hadday bad noqoto iyo hadday bari noqotaba ummadda Soomaaliyeed kama tanaasulayso. Cabdiraxmaan Shoode, Universal TV, Muqdisho.